intaas kadib aragtida ku aadan ogaalka ana aragtidayda intaanan gelin ka hor xagga markaan ka fiirino jaanibka diiniga ama islamic perspective حتى هذا نوع خبر ولا هين وحاول إلهي كفري أما كوجيسية فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أرنتها سيادة يا ضاد العلم ولا هين فأين أدوي دي سادتك قصيصو أهل كوا وحكى له عن حسوستا إلهي حتى غفان فما هذا ماشي كده يجرتوا غفان حوجين إله وعذابي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا إله إليه نرجو حتى من يكون عذابه إلى نصدرنا الرسول أرنتها سيدها ودقيس وأرنت أوضن بسوق قيامة قفك مركا لو دريرنا مركا نارت الله وذا حق إذا حتى بحال لي هاي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا مركز وجوابا يعني قالوا بلى يا نعم حتى حق بدن سيد عادي بلى اسكدا إنا أوجا عادي أوجا أرنتها سوق الله يدو التايب عنه هذا marka arintan iyada meeysan idin kaga imaano risaalo aan anaga idin soo dirnaa ama rasuul ama nabiyo idin kaga qosoodo maalintan iyada in cadaabkan uu jiro maalintan ay jirto wadadan la maraayo qof kasta wuxuu u mudan yahay janno iyo naar la siinayo ogaalkayga aniga as journalist wax badan oo ereyada terminology-ga ah dhinaca sharciga marka loo fiiriyo waa ku dhibanaan jira laakiin markasta waa la qabsanay marka qof kale oo ilamid ah asaga la tarkiis inuu ogaado fiicanta tusaale ahaan mesela ereyga qofkan xukuna lagu riday iyo xukuna lagu fuliyay it is totally different maana xukuna ka soo baxay xukunkaas noocaas wuxuu ahaa sidaas that's waa final destination kiisa oo maxkamadeed laakiin fulinta it's another case fulin qofka markaa maqasho xukunka qofku waa lagu fuliyay ama tacsiir noqoto hala tumo ama hal dilo marka ridistas iyo fulintaas somehow hadii ay ku kala fog tahay ama aan ogeyn xataa waxay ku fiican tahay in qofka la weydiiso sidaas wax kaliya qofkana wax ku noqon karo qalad uu sameyn karaa laakiin qaladkiisa inuu arko sax ma inuu qaladkiisa ki saxda ah uu arko sax ma muhiimadu waxay tahay inuu yiraahdo bal waa la iga roonaa arrintan iyada waa la iga khibrad fiicnaa bal aan weydiiyo oo aan ogaado xataa sheekada warinta markay ku timaado wala iska hubiyaa iyada laftirkeeda qofka ku dardaar warinayo inkastoo xumaanaysan ku fiicnayn markasta waxay ku fiicnayd maxaan ku raadaa qofka inuu wanaag soo tabiyo qofkaas laftirkiisa la fiiriyo inuu barax tiran yahay arinta kale oo ku saabsan ogaalka waxyaabaha raajax ka dhigay diinteena waxa xataa si dhab u daba gasho waxa kamid ah xasuustaan qisadii saxaabigii loo diray reerkii baqdan darteedna yiri maxaan ku raadaa arintaas iyada way soo diideen markii dambe ay soo degtay آياتي هدي الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أرنت هذا مركب حكاية ربطة ويرانا حسا على الأقل مركب يولدته إن أرنت سيدها يدب وسيدة بكاكر مركب شخصيا هذا وحا عاسميني سيدي وحا عليه سيدي وحا أمد الله ذاكس حتى أحضر له داي إن يرفلوا أها كل ساعة وصاحبك وحكي عنه حس إن أسكب راح ترتو ضد كليه وكفرنا وحياتها وحان ما غاني مركز تنا حوا علم سيدي سوى موت وارد البع اطلب العلم من المهدي الى اللحد wax laga duqoobana maaha wax la iskala weynaadana maaha markasta waa ina weydiisaa waxa qofkan uu ku dheeriyaa walaasha ama walaalka ina weydiisaa ku furan somehow farsamada hadii ka liidato waa ina dhahdaa artayada kaamirada dib ay ga haystay Cabdullaahi Yaaqoob sideen yeela hadalkan iyaga waa turjum waaye walaashay aamino sideen yeela ina tirada muhiim hadda qofka dhigi karin de waxa ma tii meel lama socotid taladii marka cumuuman waxa fasalu hal dhikrin kuntum la taalamuun maalin kale iyo waqti kale nabadgelyo assalaamu calaykum king ccy janaalkan da ku cusubtaa walaal fadlan subscribe de muuqaalada saaxiibada la wadaag waxaan rajeynayaa in wax badan ka faa'iido doontaan hadii ay bal laga helo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo assalaamu calaykum